waxaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka soo gaadhay saraakiil ka tirsan hay'adda Menhal oo markaasi ka sameynaya qiimeyn lagu sameynayo dadka iyagu u baahan qaliinka indhaha iyo kuwa dawooyinka loo qorayo iyadoo saraakiishana ay sheegeen inay soo socdaan dhakhaatiir ka howlgali doonta isbitaalka Menhal isla markaasna qaliin bilaash oo sameyn doonta dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood kuwooda la daalaa-dhacaya indha-la'aanta. annagu maaha markii koobaad aanu Laascaanood nimaadno ilaa iyo 2002 waa imanaynay laakiin cisbitaalkan aan maanta taaganahay waa markii saddexaad ee aanu ku nimaadno qaliin lagu sameeyo haddana waxaanu u nahay diyaar oo aanu u nimi shalay baanu nimi labadii duhurnimo ayaanu nimi waxaanu wadnaa registrationkii diyaarintii waxaad kale oo imanaya dhakhtarkii qaliinka sameynayay dhakhtarkii isaguna dumarka oo la socda furanka oo imanaya isna halkan oo la socda Dr. Shiin oo naga dambeeya muddadaanu joogaynaa waa adigu ilaa week 10 casho ayaan joogaynaa waxaana noo qorshaysan 3 bilood baynaanu mar nimaadnaa ayaa noo qorshaysan si cisbitaalku u noqdo mid shaqeeya bulshadana marka goorma laga yaabaa inay ku soo xaroodaan dhakhaatiirta carabooda waxaa lagu gudbiyay ayuu imanaya Shiin iyo dhakhtarka kaleba maraanu booqanay isbitaalka Menhal oo haatan isagu la yagdhalay sanadii hore ee 2010 ayaa waxa sharaxaad guud nooga bixiyay qaabka isbitaalka iyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay Dr. Cabdirashiid Maxamuud Xirsi oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Menhal. isbitaalku wuxuu ka kooban yahay u shaqeeya sida soo socota qaybaha inpatient iyo outpatient. outpatient kuwa dadka patient ka ah ee maalintii noo yimaada tiradooda waxa lagu qiyaasaa 15 ilaa 17 ma garata dadka inpatientiga ah ee shaqada maalintii waxa loo qiyaasaa 4 ilaa 5 marka dhakhaatiirta ka hawlgasha waa intee tiradooda dhakhaatiirta ka hawlgasha waa aniga iyo Dr. Rusiye oo caawiya maalinta Khamiista iyo Sabtida soo weelal bikraya oo ina siiya intee kalkaaliye baa jooga markaan waxa jooga shaqaalaha tiradooda guud waxa weeyaan waa ilaa 22 qof 22 qof marka lagu daro xitaa waardiyayaasha waxaa jooga 3 qof oo shaybaar ka shaqeeya 2 farmasiga jooga kalkaaliyaasha caafimaad oo ah 5 ilaa 6 waxaa jirta kale waxaan sameynaa registration wax la yiraahdo waxaan register gareeyaa kasoo qaad markuu yimaado qof u baahan qaliin registerka ayaa ku qoran markuu ay gaaraan tiradooda number go'an ayaa waxaan u yeeraa doctor qaliin dumarka oo kale saas oo kale waxaan kaloo sameynaa wax la yiraahdo referral oo ah sida dumarka isgooska oo ku dhaco kale inaanu ugu xawlo Boorame Fistula Hospital oo joogo Dr. Qaws oo ah dhakhtar ku takhasusay marka ay dumarku isgoostaan ama fistula wuxuu dhacaa marka ay qofka dumarku sufuranka uu ku dhaco kale inaanu sameeyno maxay ahayd waxa kale program loogu jirto haddii Ilaahay nafta noo daayo inaanu gaadhno xitaa goobaha kale ee tuulooyinka hadda ku soo qaad buuhooda kale mar ayaan u tagay muxuu ahaa campaign hadda haddii Ilaahay naftayda waxa bilaabaya campaign xudun taleex boocame muxuu ahaa ilaa arsal soo karinda bilweyn ilaa muxuu ahaa halka soo ilaa asoo marno saas muddo saas soo wareeg saas soo sameeyno maadaama hadda waqti ay tahay waqti ay dadkii oo dhan caruurtii ay iskuulada fasaxayeen caruurtana caan doonteen magaalada waan ka daba guuraa dadka meesha guuran si ay u helaan daryeel caafimaad oo ku habboon isbitaalkana sababaha loo furay waxa kamid ah in dadku ay ka maarmaan inay u aadaan caafimaad u doontaan muxuu ahaa ama Hargeysa ama Garowe kale inay ka maarmaan waxa jirta inta badan waxa dhacaa kiisas degdega ama dad dhaawacma magaalada Laascaanood waxa caan ku tahay dadka dhaawacay soo gaaraan in markiiba transfer gareeyo furaha ama jirada loo gudbiyo marka taasna waxa lagu macnayaa in dhakhaatiir la'aan ay jirto dhanka qaliinka isbitaalkina qorshaha ugu jirta in dhakhaatiir dhanka qaliinka ay joogta oo keenaan magaalada Laascaanood anigu hadda qaliimada inta badan anaga sifaarku waanu sameeynaa waxaanu refer gareynaa waxyaalaha naga awood roonaada waxaan naga maqan qofka suuxiyaha kaliya ayaa naga maqan reer Laascaanood waxaan leeyahay waxa weeyaan dhakhaatiir way joogtaa been waa xaraan waxaan ku joognaa 5 dhakhtar baan ku joogaa waxa jooga aniga oo Dr. Cabdirashiid Maxamuud Caliya Dr. Muuse Geela jooga Cabdi Buraala jooga Cabdi Qani oo pediatric ku takhasusay baa jooga trika jooga waxa weeyaan reer Laascaanood ha iimaansadeen dadkooda iyo dalkooda iyo dhakhaatiirtooda waxaan u jeedaa doctor qaliinka oo kale qaliin degdeg u baahan yahay dhowr gooyaan xawlay waanu keenayna hadii la yiraahdo oo Ilaahay noo saamax awood Ilaahay waxa dhigna waa haysaa dhibaatooyinka dhacay gobolka ayaa dhakhtar kasta markaan keenno ayaa waxay keentaa
اللي هذا دعايات يريرو سكتشون أنت دبعتها كده على الأسعار كمان بدنا دبعتها كده على الكونفورت الصومالية كله هرجيسة العرقابو فرعو نبتقليه ولا أسعار ونبتقليه الصومالي كله لكن وحاجة فوكس dadku ay carabkooda jeclaastay la saacado inay ka uga dhigaan dadka marka dhakhtarka waa tiraahdo la saacado u kale meel ay bahal geliyeen isbitaalkani manhal ayaa la dhisay sanadii 2010 sida uu sheegay mas'uulkaniba iyadoo haatan baahi weyn looga qabay dhanka caafimaadka magaalada Laascaanood ayaa hore waxay u lahaan jirtay hal isbitaal oo ay dhiseen Ingiriiskii kaasoo la yeegleelay sanadihii 1960aadkii isla markaasna aan ahayn mid baahiyaha caafimaad ee gobolka oo dhan dabooli kara iyadoo magaalada Laascaanoodna ay yar yihiin dhakhaatiirta ka howlgashay dhanka qaliinka hayeeshee isbitaalkan manhal ayaa intii la furay waxa uu sameeyay qaliino kala duwan oo markaasi ay aad ugu riyaaqeen dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood iyadoo 3 biloodba mar ay yimaadaan dhakhaatiir kala duwan oo qaliino ka sameeya magaalada ayaa haatan waxa imaanaya isbitaalkan manhal dhakhaatiir iyagu ku takhasusay dhanka indhaha iyo cudurrada haweenka gaar ahaan kuwa isku furanka maxamed cismaan cabdinuur telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool